dadnimadu casrigan inuu joogno waxay si xawaare leh ugu shiraaqatay dhanka dalowga kuwii arlada biyayna kuma ekaanun inay muuqaalo xunxun sameeyaan ee waxay u sahay qaateen siday khaniisnimo iyo qoomuluudnimoba u fidin lahaayeen cadaadis lixaadle ayay ku soo rogeen dowladaha ka yaqiiqsooday falalkan si ay uga dhigi lahaayeen olole hana qaado oo lagu biiriyo xuquuqda aadanaha hagaastay geed dheer iyo mid gaabanba way u fuuleen tan ugu amakaaga badanna waa in xanuunkii hamadda carruurta uu la koray fikradahan anshaxa xun waxaa dhidibada u aasay oo ka dhigay tiiray miciinsadaan dadka bukaanka waa cudurkan madaxdii kiniisadaha fatikaanka iyo baadariyadii falluuqa galmad ee ugu soo gaban jiray diinaha malaawaalka ee fidinayaan sida uu soo saaray qoraagii faransiiska ee cilmiga bulshada ku takhasusay Frederic Martel baaritaan uu waday muddo 4 sano ku jaangoon oo uu ka diyaariyey buug 400 oo bog ka kooban uguna magac daray Sodoma Martel waraysi uu siiyey wargeys ka soo baxa Faransiiska ayuu ku xusay in wadaadadii kiniisadaha Fatikaanka ay in ka badan 50 sanadood qarinayeen falalkoodii galmada ee horseeday balanbalkan jinsiga qoraagu waxa uu carabaabay in magaca dhiganaha uu ka soo xigtay magaalada Saddum ee haddeer ku taalla waddanka Jordan Martel buuggiisa waxa uu diiradda ku saaray in munaafaqada kiniisadaha Fatikaanka ay bartay aadanaha casriga xadgudubka galmeed isagoo ku dooday in falalkan anshaxa xun ay ku yaalin kutubtooda ay dhowraan ee diinta masiixiga Frederic waxa uu Fatikaanka ku tilmaamay bulshooyinka ugu xag jirsan xagga galmada khaniisnimadana u horseedeen ummadda waqti xaadirkan Dr. Cabdiwahaab al-Masiri alla jina Firdawsaha ka waraabiye waxa uu sii saadaaliyay bartamaha 9aadkii qarnigii galbaday in reer galbeedku u jihaysan doonaan xag jirnimada galmada ujeedada ka dambaysa arrintan aysan ahayn hamadda ama dareenka hanashada lamaanka ee ay tahay ku talaxtaga mabda'a raaxada al-Masiri ayaa yiri waxaan aaminsanahay in khaniisnimadu ay guud ka saaran karto natiijada maangalka ee rabitaanka raaxada xaddaafka ama hedonism ereyga hedonism waa eray bixinay culimada kasmanafeedu astaan uga dhigeen rabitaanka aadanaha ee raaxada sarreysa isagoo hoos u dhigaya cadaadiska xanuunka haysta qofka khaniiska waxa uu xilli waqtiyeysan dul joogi karaa lamaankiisa uu galmada kula bahoobay wixii intaa ka soo hadhana waxa uu si quman u wadan karaa noloshiisa waa sida uu aaminsan yahay isagoo ka firdhanaya inuu xidhiidh dhaba hirgeliyo waxa uu dareemihiisa ku mudayaa suuxisada ismoodsiinta caalamka dhabtaa si uu uga nasto yagleelka qoys waxa uu horseedaa inaad heshid baahidaada jinsiyadeed taa beddelkeedana waa mas-uuliyad qoorta kuu suran oo aad ku qasban tahay inaad boodhka ka jafto markastoo raaxada aad helaysa ay badato dhibka ayaa kordhaya waa sunnada adduunka ee eebba u qotomiyey balse qofka labeebka uma diyaarsana xaqiiqadan oo cagsiga ayuu door biday si uu hedonism u helo Dr. Cabdiwahaab waxa uu intaasi ku daray in jabaqda iyo sawaxanka baxaya ee lagu taageerayo khaniisiintu aanay ahayn naxariis loo muujinayo iyo haybsooca lagu hayo sidii loo burin lahaa ee waa masalo ka sal weyn arrintaas balse waa weerar lagu soo qaaday hanaankii cudoonaa ee aadanuhu u jiray tarankii bini'aadamka ee arlada guudkeeda si loo mijaxaabiyo ayaa fikraddan loo taageerayaa in la helo bulsho lab iyo dhadig u dhaxaysa waa ujeeddada ugu weyn nidaamkii akhlaaqiyadeed ee noolaha ayaa la majar habaabiyey maxaa loo difaacayaa labeebnimada xagjirnimadan galmeed ayaa si badheedha uga soo horjeeda dabeecadda eebba u abuuray aadanaha oo dhan sida uu alle qur-aankiisa ku tilmaamay faaqim wajhaka liddiini xaniifa fidrata allahi alatii fadara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah dalika addiinu alqayim walaakina akthara annaasi laa yaclamuun quraanku waxa uu tilmaamay in ciqaabta khaniisnimada iyo qofka ku xadgudba damiirka aadanaha nadiifta ay tahay mid adag oo lagu abaalmarinayo cadaabka kiisa ugu xun falamma jaa amruna jacalna calayha saafilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود علماء الإسلام waxay ku fatwoodeen in dadka lagu xaqiijiyo falalkan ay mudanayaan dil kan sameeyay ka lagu sameeyayba waxaana dilkoodu noqonayaa in meel dheer laga soo tuuro oo dhagaxaan laga soo dabadaayo ilaa ay nafta kala yardhoobayaan khaniisnimadu waxay hor istaagaysaa ujeedada eebba inoo abuuray wadadii nashqadaysneed ee diinteenna suuban u habaysneed lab iyo dhidig cibaadada eebba awgeed ayaa noqonaysa mid isku qason aan kala socnayn habdhaqankii guurka iyo badnaashiyihii aadanahana way wiiqaysaa gebi ahaanba labeebnimadan waxay xaysiis u ahayd ololihii dhadigoodshaha ama feministiga oo xambaarsan ahaan farka lagu raadinayo xuquuqda gabadha ka maqan iyadoo ay ku lifaaqnayd galmadu markaas ayay galka seefta kala baxday xagjirnimadan galmada ee labeebka
waxaanay buddigu ahayd dagaalkii ka dhanka ahaa qoyska aabbaha iyo hooyada ka kooban laguna suuq geynayay astaanta jendarka sida uu sheegay doctor axmed khadar khatarta dabada ka riixaysa astaanta labka iyo dhadiga ee jinsiga ma aha inuu koobsanayo calaamadaha lagu garto ragga iyo haweenka ee waa mid nafsiyadeed xataa rabitaanka qofka ee jinsiga uu doono iyadoo aan loo eegayn xubnaha jidhkiisa ayaa loo tixgeliyey jendar lab iyo dhadig iyo bale iyo baas erebixintan jendarkana waxaa loo qaatay doorka aadanuhu ku matalo bulshada biolojig ahaan iyo mid rabitaankiisa ku dhisan mana aha mid suurtagal ah waa khaniisiintii reer galbeedku haddii ay qabtaan ay nolosha ku gubi jireen iyagoo u diidan inay dhiiggooda dhulka u daadiyaan waa xanuunkii ay la taagdarnaayeen dadka qaba ee sida baraska looga firdhan jiray ayaa noqday mid taageero ku yeesha bulshada dhexdeeda mid ay la soo banbaxaan dadka xiiseeya iyagoo ku qanacsan cudurka haya magacyo badanna u bixiyeen LGBTQ alla magacyada ay u bixiyeen badanaa dhowaan ayay ahayd markii shirkadda Nike ay kala laabatay heshiiskii xayasiiska ee feeryahanka Mane Bokowi oo si badheedha u weeraray khaniisiinta isagoo ku tilmaamay inay ka liitaan xayawaanka markii dhigbaxa dhaqaale ku yimid Bokowi ayuu raaligelin qasaba ka bixiyay arrintan Nike-na waxay uga abaalgudday inaanu istaahilin shirkadoodu dhaqaalaha ay ku siinayso heshiiska xayasiiska Nike ereyada u adeegsaday Bokowi ay ku sifaysay kuwa laga wisuuso ma iyaga ayaa sameeyay wax laga wisuuso miyaanay qowmuluudka u gargaarayn miyaanay fitradii aadanaha iyo damiirkii fayoobaa meel kaga dhicin sida uu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين دفاعي حقوق خنيسينتا waxay isku rogtay sheegashada iyo ku dhawaaqida waxa kan oo waxay marqaati ka ahayn bishii June 26keedii sanadii 2015 hay'adda garsoorka guud ee Mareykanka inay ku dhawaaqday labada jinsiya isku midka inay wada aqal gali karaan madaxweynihii madooba ee Mareykankuna waxa uu ku tilmaamay guul taariikhi iyo sareynta jacaylka gabadh Soomaalidu qaada dhigto oo Ilhaan Cumar la dhaho sida la sheegayna ah muslimadii ugu horeysay ee Koongareeska gashay iyadoo xijaaban waxay u gargaartaa khaniisiinta Mareykanka waxaanay dhowr qoraal ay garab ku siinayso ku daabacday barteeda Twitter-ka qofka labeebka ee la soo banbaxa falkiisan iyo qofka taageera waxay ku kala duwan yihiin bal aadba hoosta ka xariiq daraasad lagu sameeyay rabitaanka bulshada Mareykanka ee xagjirnimada galmeed intii u dhaxaysay sanadihii 1990 ilaa 2016 waxay gaareen dadkii ay yiday 49% 63% waxay noqdeen kureyda qaan gaadhay heerkii khaniisnimada ee faca soo koraya ayaa sare u kacay 8% wixii inta ka dambeeyayna 30 jiradii ayaa saaxadda kula soo biiray 7% rag ayay ahaayeen haweenkuna waxay noqdeen 12% isboortiga iyo xayasiiska labeebka inkastoo ciyaaruhu kaalin wanaagsan ku leeyihiin bulshada waxa loo adeegsaday gabadha qaawan ee dhegta loogu shubay sinaanta ragga iyo dumarka taasoo hoos timaada been iyo malaawaal lagu harowsaday haweenka si guryahooda looga soo saaro fariinta foosha xun ee lagu soo gudbinayo ciyaaraha waxay ka tagtay sinaantii u dhaxaysay labka iyo dhadiga ilaa ay wadada u xaadhay taageeridda qowmuluudka horyaalada ugu caansan adduunka sida Premier League waxa uu ku caanbaxay sanadihii ugu dambeeyay garabsiinta iyo suuqgeynta fahanka LGBT-ga oo xadhkaha goosatay dhawaanahan dalka Qatar oo adduunkii ugu dambeeyay marti qaaday waxa lagu haystay wuxuu ahaa maxaad qoys qurxoon u leedihiin muxuu ehelkiinu iskugu tiirsan yahay wali maxaad aadana u tihiin tabta aadanaha u dhaqmo aan kala daadsanayn weynagii arkaynay sidii qurxooneyd ee loo agaasimay koobkii adduunka una noqday koob adduunkii ugu quruxda badnaa taariikhda cid kastana ka marxaati kacday quruxda islaamku leeyahay marka lagu dabaqo nolosha aadanaha diinta islaamku waa wadada badbaadada waa xariiqda cas ee difaacaysa sharafta iyo karaamada hanaanka nolosha aadanaha si kastoo ay khaniisnimada waxay siiyaan reer galbeedku waxa asturkeenu yahay diinteena suubanaan tabteeda u qaadano haddaba daawada meesleeda ay fikradan foosha xun garab ayay ku heli kartaa dhulka islaamka haddii aan talaal loo helin faalladaada xagga uusan ugu reeb naguna soo bir haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid